بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة شرفت للمرشحين حلك ملكويني بعد صحافة دمان شعب كسونا لمالا جوكتين waxaan jecelnaha maanta inaan idinla wadaagno sidaas oo kale arrimihii 19 ka dhacay iyo dhammaan waxa la xiriira doorashooyinka. waxaan rabaa inaan ugu hormariyo sida aan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay leeyihiin mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabad ah lama farageli karo. dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso, laakiin 19 waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan xilal ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed in la isku dayay in la dilo. meeshaas dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, ummad ayaa la argagixiyey. welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shalay oo ahayd in uu suuro galo banaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahayd tole cadaladeey dadka baxsan insha Allah tabaaraka wa tacaala maalinta Jimcaha. marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan u baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan. haddaan maanta xaqiijin weyno 60 iyo dhowr sano kadib inaan banaanbax nabadeed qaban, macnaheedu waxa waaye dariiqda dowladnimada waxaa hor taagan caqabaad iyo dictaatoriyad iyo xurriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadi'da ugu horeysana waa xurriyaadka dadka. xurriyaadkaasna waxaa kafaalo qaaday sharciga. dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. taas waxaan rabaa halkaas inaan ogaano. arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqeynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto si nabada, isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sarreynta sharciga ama dastuurka. marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. waxaadna ka garan kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacaya wax ka badan aan sameyn. waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano, fursad siina dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan, ciday doonaan ay doortaan, lanala shaqeeyo. taas ayaana dhacday. mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalay aan aaminsanayn, maanta waa aaminsannahay, beri waa aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadkaan ugu yeeraynaa. waxaan aaminsannahay maalintii qarannimada Soomaaliya la aasaasay oo xurriyadda la qaaday, mabda'aas haddii lagu adkaysan lahay oo faragelinta ciidanku aysan imaan lahayn, maanta Soomaaliya meeshaan meel aan hayn joogi lahayn. marka ma ogolaa karno 30 sano oo burburan kadib in haddana ay timaado in sharciga loo hoggaansami waayo, awoodda dowladnimada lagu takrifalo, doorashada meesha ay ka baxay. waxaan rabaa inaan idiin sheego cidaan u wakiilanay hadalkeenna iyo aragtideenna oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayna war khilaafsan intay sheegto annaga noo nisbay karta ma jirto. warkaas in la fahmaa umadayna waa golaha, waxaa leedahay golaha murashaxiinta. qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha.
waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadalno iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta qof aan xil u haynin murashaxiinta aan ka tirsanayn afhayeen aan u ahayn ayaa hadlay annaga dhiiggeena looma banaysan karo waxaan u malaynaa aragtidaas waa cadda midda labaad waxa waaye midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahadcelino labada madaxweyne goboleed madaxweyne Siciid Maxamed Dani Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madoobe informationka iyo mawaaqifta Soomaalinimada dadnimada leh ay la wadaageen dadka Soomaaliyeed oo aan hore caado u haajin aad iyo aad uga mahadcelinayna waxaan aaminsanahay inay tahay mawaaqif adkeynaysa dowladnimada Soomaalinimada iyo in laga run sheego geedi socodka nabadeed ee aan doonayno in ay ku timaado doorashada waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka saddexaad waxaa wada ogtihiin madashaan waxay soo dhaweeyeen heshiiskii 17 September oo ka dhacay Dhuusamareeb qayb kama ahayn kuma qanacsanayn waxa lagu soo heshiiyey dadka dallayda ah oo doorashada galaa iyaga ahayn oo ay heer laga tixgeliyo mana dhicin laakiin haddana waa soo dhaweeyeen waxay u soo dhaweeyeen heshiis jacayl ay u soo dhaweeyeen waxaan aragnaa 17 September inay sii dhimanayso waxayna usii dhimanaysaa in reality-ga la iska indhatiraayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xalliyo inaan la rabin waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun military waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan military boolis nabad sugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo mabaadidaas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dambiilayaal marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiiyo maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoostaga oo amarka qaadan ilaa madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaan madaxweynaha ayaa taliyaha guud ee ciidamada madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaan sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogayaa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la qaadiyo marka 4 sano waa dhammaan yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda qaadaya hadday dhacdo ruux waqtigiisii dhammaaday inuu amar bixiyo khaldan qofkii amarkaas fuliyey iyo qofkii sameeyo dembigood waa laba laabmaya waxayna noqonaysaa dembi ku talagal iyo ujeeddo loo galay arrintaas waxaan leenahay waa arrin khatar ku ah qarannimada Soomaaliya inay sii socoto dowladnimada inay sii socoto waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiro dowlad xoog ku dhisnaa kartaa ma jirto tajaaribta adduunkaana tustay annagaa hore soo marnay dowlado badan oo Afrikaanaha soo maray kuwa Carabaha soo maray kulli waxay ku dambeeyeen meel aan fiicnayn marka waxaan ku laabanaynaa tii hore mase waxaan saxaynaa khaladaadka dhacaya maanta annagu u jeedna waxaan saxaynaa khaladaadka maanta jooga waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa maanta inaan joogno xilli aan saxi karno maxaa yeelay khibrad waxaan u leenahay wixii soo dhacay oo dhibaatada ahaa iyo burburka marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay u hoggaansamaan sharciga faraha kala baxaan siyaasadda ciidamada qalabka sida dhammaantood waa inay u hoggaansamaan sharciga kala baxaan siyaasadda faraha waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhalinyarada Soomaaliyeed ee diiday inay faldambiyeedka la amray ay ka qayb qaadato baal taariikha oo dahabi ay ku qoran yihiin waxaana u aragnaa waa inay ka qayb qaateen dhismaha qarannimada mushaara la siiyey
iskaraa layga dhigay dowladnimo kuma dhisatay dowladnimo waxay ku dhisan tahay aragti falsafad iyo waxay ku dhisan tahay mabaadi sharci dowladnimo ku dhisantay marka waxaan rabnaa inay u laabtaan wax saxda ah waxaan rabaa inaan u gudbo madasha murashaxiinta dhammaantood waxay jeclaan lahayn berri doorasheen berri dambe iska dhac berri ino laakiin inay noqoto doorasho xur ah oo xalaala oo laga wada qayb qaadan karo waxaan aaminsanahay xallinta khilaafaadka ka dhashay heshiiskii 17 September maalinba maalinta ka dambeysa khilaafku waa sii fogaanaya maanta waxay taagan tahay dowlad goboleedyada shala qaybka inay yidhahdaan kama qayb gelin taas waxay koos garaynaysaa doorashadii inaysan dhicin marka waxaad isweydiisaa kala fogaashada ayaa mas-uulka ah yaa la rabaa dalka inuu isku haayo yaa la rabaa dadka inuu isu keeno yaa la rabaa dadka inuu isu tanaasuliyo yaa la rabaa mas-uuliyaddaas way saaranta waxaan u maleynaha inaad mujaab iga baahnaya waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed maanta waa maalin muhiim waxaa samaysmaya taariikh Soomaaliyeed laba dariiq aan noo furan dariiqa sharcan ku duna inaan marno iyo kan kaloo saxda oo dimuqraadiyada xukun wanaaga isu tanaasulka inaan marno labadaas inaan kala doono waxaan rabaa inaan dooranayno midka kale awood fara badan iyo hub fara badan iyo ciidan fara badan iyo dhaqaale fara badan xaqa laguma fiiriyo dowladnimada laguma fiiriyo waxaa lagu fiiriyaa mabaadi'da ay ku dhisan marka annaga ka duulayna mabaadi'daas dowladnimo annagoo ka duulayna adkeynta sharciga annagoo ka duulayna wada jirka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay madaxda halkan joogta waxay qayb ka soo qaateen dhisidda dowladnimada haddana waxaa lagama maarmaan ayaga iyo dadka kaloo muhiimka ah inay qayb ka qaataan maxaa yeelay dadka soo bilaabay waa ku kala tageen waa ku kala alkidwanaadeen waqtigeeni waayo annaga aan farqin leh aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم. أنا راح أتكلم على الورق إذا هو الدنيا الإلهية على صوص عطاء نحن بعد كده بشهر فبراير ومالين كله وأول مداهرات إنه شعب الصوماليين أو وكيل وين نحي تتكلم عن الشوك البخل. مركب حرمنا إن الصباح بركولن كانوا وسيد الشهرين درجة الحصول iyo intaasoo dheer oo wada kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno irid kastana aan ka mudaaharaadno ayaa ballanteena tahay maxaan saas u yeelaynaa waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhamaaday yaa wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship aan kaligii taliyo ama dagaal sokeeye in gelnaa labadaba ina isku awood isku aqli isku maskax isku maal ku diinaarno wadahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyana ma ogol see ku dhici kartaa marka waa mahadsan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo mowqifkaas cadeeyay oo damaca farmaajo cadeeyay sidii hoose ula sheekaystay iyo sidii kore intaba waxa uu damacsan yahay diidayna inay qayb ka noqdaan ajandihii Soomaaliya lagu kala geynayo aad ay u mahadsan yihiin fariinta digniinta ay noo soo direenna waa uga mahadcelinayna annaga maxaa ka rabaa annaga waxaa ka rabaa inaan diidno inuu labadaasna kala doorisiiyo ayaga qaybtoodii way diideen annaga qaybteena waxaa waa inaan ku diidno mudaaharaadka hadalka dooda nabadda isku soo baxan ku diidayna oo leenahay maya taas annaga inaan ka gaabino marka maaha wadada kale oo lagu jiidaayo ma ogolin waan ognahay dadka taageerayaasha oo dadka musharaxiinta halkan taageerayaasha ah inay dareemayaan inaan ku gabad falayno oo u muuqano dad daciif ah oo wax iska celin karin oo yaciska dhigi karin daandaansiga oo dulmiga aanan iska
saas laakiin arrintu ma aha taas annaga uma socono waa midda la rabo in lagu jiido shacabku inay ogaadaan waa midda aan ogolayn inaan ku wada jiidano oona doonayo farmaajo inuu noo jiido annaga waxaan rabnaa nabadda iyo mudaharaadka iyo hadalka awooddiisa inaan wax ku bedelno adduunkana waa lagu bedelay waana jirtaa midda kaleo meesha ku jirtaa waxay tahay cid kaloo isku halaynayna ma jirto oo annaga aan ahayn laa beel caalamaan jirin waa nimanka u durbaantumaaya farmaajo oo xilligiisii dhammaaday waxaa aragtayna sameeyey cidda weli la shiraysa oo mas-uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula macaamilaysa waa beesha caalamka ma sugayno waxaana kaloo sugaynin dad aan isleenahay oo kaloo hadeerta iniin maqan oo caqli iyo garaad inay yeeshaan ku soo baxaana hadda ma sugayno mana muuqato hadeertaan hadday imaato waa ilaahay mahadiis waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariiqno 19 wixii dhacay Febraayo waa wax annaga aan ku dheganahay ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqay aysan jirin doorasho iyo doorasho la'aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19 wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray iyo maalintii oo inteena kale saa ogtiin jidkan anagoo ku mudaharadeena uu ka xabadiyey arrintaas waa in meel la saaraa hadday tahay golo ammaan hadday tahay beel caalam hadday tahay soomaali hadday tahay gobollo hadday tahay dowlad federaal waa in arrintaas meel la saaraa iyadoo meel la saarin arrin la isaga tilaabsan karo maaha iyadoo la mudaharaadi karin doorasho lama qaban karo waa inaan marka hore xaqiijinaa in la mudaharaadi karo si nabada markaan taas xaqiijino ee doorashadu ku xigtaa allaan doorashadu soo ololo maaha soo campaign maaha soo siyaasad maaha soo dadla kulan maaha haddaan dadka lala kulmi karin oo la mudaharaadi karin oonan si nabada loo soo bandhigi karin ra'yigaaga doorashada la gelaayo maxay tahay tii Kim Un-jin maa dhihi jiray ninkii ka tali jiray koonfurta kuuriyada waqooyi miyaa doorashada la gelaayo mise midda afwarki waayo annaga doorashada afwarki oo kale ma rabno doorasho waxaan rabnaa dadku ay tartamayaan xor yihiin tii maxamed cabdullaahi farmaajo hoteelkan subaxii ka tegey galabtii la doortay taasoo kale rabnaa annaga inay dhacdo marka waa inay dadku ogaadaan arrintaas waxaa kaloo rabnaa inaan ka digo farmaajo waxaa xalay fashilmay qorshayaashiisii ahaa doorasho maaweelo ah oo been ah inuu nagu dul hayo oo waxba ka jirin xalay hadalkii madaxweyne siciidey wuxuu fashiliyey doorasho been ah oo madadaala inay meeshaa ka socotay ajando kale oo ciidan iyo xoog iyo dadka in la terrorize gareeyo loo awood sheegtana oo dhinac socday farmaajo waa fashilmay qorshihiisii waa fashilmay wuxuu aadi doonaa qorshaha kale wuxuu isku dayi doonaa inuu commit gareeyo ama uu ku dhaco isqarxintii ama suusayrkii ugu dambeeyey oo ah inuu dadkaa mar kale soo weeraro madaxda meesha taagan inuu dadka ikhtiyaalo keensado inuu sida hadda la sheegaya shabaabka oo la mucaamalayo shabaab soo isticmaalo waxaan u baahanahay dadka reer muqdisho inay digtoonaadaan oo arrintaas ay vigilant ama ay ka digtoonaadaan muxaawalada ugu dambeysa ama isku dayga ugu dambeeya oo isku qarxi doona farmaajo in loo digtoonaado oo jugta dhacda aanan lagu shoogin ee markiiba dadka kici karo aan noqono arrintaasna waa ka digaynaa waxaan mar kale ku celinaynaa 19 Febraayo wixii dhacay waa wax taagan oo xagga meel looga durka aysan jirin waxaan ka xunnahay qolada beesha caalamka sheeganaysa ee rabta inay iska dhiga tirto wixii 19 dhacay ay rabta inay moodo suuragal ma ah waa crime weyn waaye oo dalkan geli kartay dagaal sokeeye laakiin tanaasulka dadkan ay ku taagan tahay oo aan ku joognaa marka arrintaas waa mowqif aan ku dheganahay oo meel looga durka ay jirin waa mahadsanyihiin madaxweynayaasha jeediye arrintaas kashifay waxaan ka codsanaynaa kuwa farmaajo la joogo waxaan rabaa inaan meeshaan uga baxo Donald Trump markuu xukunka Mareykanka qalday oo qarribay waxaa jiray dad la yiraahdo enablers dad asaga u suuragelinaya saas inuu xukumo farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suuragelinaya jiro farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suuragelinaya jiro waxaa kow ka ah ciidanka Italiyaashu gudoomiyaha ka hadlay waa ku celinaya waan ognahay saraakiisha diiday amarka guraacan ee dadka in lagu weeraro lagu soo horgeliyo waa naqaana magacooda noo qoran waa noo lisgaraysan yihiin kuwa yiri warqadii amarka isii waa haynaa ayagan oo la sii waayay
kuwa ka gadooday oo diidana waa haynaa kuwa fuliyeyna waa haynaa waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada ciidamada ku dhex jirta la adeegsanayo oo waxa xabadda uu ku ridaa walaalkiis uu yahay ama raggii shalay dalka madaxdiisa ahay ama noqon doono uu yahay inuu arrintaas ka digtoonaado ragga kale ee siyaasiyiinta waa is yaqaanaan ee farmaajo u suuragelinaya inuu saan u dhaqmane fariinaa u diraynaa waxa la isku haysto waa dal masiirkiis waxa la isku haysto waa deegaan masiirkiis inaad damiir yeelatiin oo maanta aad wax ka badbaadisiin ayaan kuu baaqaynaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum midowga musharaxiinta mowqifkooda ugu dambeeya ee banaanbaxa maalinta jimcada ayay si rasmi ah kaga dhawaaqeen maanta taariikhda ku baahan tahay 21-ka bisha waa jimcaha iyo daljirka daasoon iyo wixii soo baxa oo soo kordha wax la ku sii darsamay laakiin